dhageystayaasheena qiimaha lahow ku soo dhawaada qaybtii shanaad ee barnaamijka Taakulo oo ah barnaamij aan uga hadalna taageerada iyo waxqabadka hay'adaha iyo sanduuqyada qaramada midoobay ee ka howlgala qaybaha kala duwan ee dalka Soomaaliya. barnaamijka Taakulo waxaan idinkula wadaagnaa xogo iyo macluumaad muujinaya caawinaadda iyo taakuleynta joogtada ah ee ay qaramada midoobay la garab taagan tahay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed. barnaamijka Taakulo waa barnaamij khamiis dhaaf looga baahiyo idaacadan aan hadda idinkala hadlayno iyo kuwa kale oo badan. toddobaadkan waxaan barnaamijka Taakulo ku qaadaa dhigi doonaa. UNDP has been in Somalia and supporting Somalia for a very, very long time and has been present here and always and will continue to be present here as long as we are needed. And our basic mission is to help people to help themselves. UNDP waa hay'ad ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay ee ku bahoobay mashruuca JPLG-ga la yiraahdo. Mashruucaas oo ah mashaariicda Soomaaliya laga fuliyay kan ugu waxtarka badan gaar ahaan Garowe marka aan joogno. Mashruucan aad uga faa'iideysanay. codadkaasi waxay hordhac u yihiin waraysiyo aanu la yeelanay xubno ka tirsan barnaamijka horumarinta qaramada midoobay ee UNDP. si aad uga qayb gasho barnaamijkan soo wac idaacadda aad barnaamijkan ka dhagaysanayso oo adigoo aqoon ku salaynaya ka jawaab su'aasha ah sideed u aragtaa taageerada joogtada ah ee hay'adda UNDP u fidiso dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed. haddii aad barnaamijkan kala socoto baraha bulshada ee Unsom fadlan noo reeb aragtidaada. waa hagaag dhageystayaal. haddaba intaynan u gudbin waraysiyada aan idinkugu hayna barnaamijka bal guutaalo si kooban noogu dulmar waxqabadka hay'adda UNDP ee Soomaaliya. barnaamijka horumarinta qaramada midoobay ee UNDP waxaa la aasaasay 22 bishii November sanadkii 1965. hay-adda UNDP ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha horumarintu waxa ay ka shaqeysaa horumarinta isku xirka farsamo iyo maalgashi ee u dhaxeeya wadamada adduunka oo dhan. si taas la mid ahna waxa ay u ololeysaa isbedelka iyo isku xirnaanta dalalka caalamka oo dhan iyadoo loo marayo cilmiga waayo aragnimada iyo kheyraadka si dadyowga adduunka loogu caawiyo dhismaha nolol wanaagsan oo ay ku wada noolaadaan. hay-adda UNDP waxa ay Soomaaliya ka shaqeynaysay tan iyo laga soo bilaabo sanadkii 1991 ilaa iyo waqti xaadirkan waxaana ay ka taageertaa qorshayaasha Soomaalidu ay hogaaminayso. UNDP Soomaaliya waxay si dhow ula shaqeysaa dawladda iyo hay'adaha aan dawliga ahayn ee ka howlgala dalka Soomaaliya. weli dhageystayaal waxaad la socotaan barnaamijka Taakulo oo aan khamiis dhaaf idinkugu soo gudbino. waad ku mahadsantahay guutaalow sida aad noogu faahfaahisay waxqabadka iyo taariikhda aasaaska hay'adda UNDP. sida aad sheegtay UNDP waxa ay si weyn u taageertaa qorshayaasha howlaha kala duwan ee lagu gacan qabanayo amaba lagu kaabayo dawladda iyo dadka Soomaaliyeed, taasoo si weyn u kabtay niyadda iyo dadaalka dadka Soomaaliyeed intaba. haddaba si aan idinkugu soo bandhigno xogo badan oo ku saabsan waxqabadka hay'adda ayaan waxaan la xiriirnay Jocelyn Mason oo ah madaxa xafiiska UNDP ee Soomaaliya. waxaana aan ugu horeyn weydiinay sida hay'adda UNDP u taageerto dawladda iyo dadka Soomaaliyeed. And our basic mission is to help people to help themselves. And whether that's the government, the NGOs, media institutions, businesses or individual people, that's what we do. shaqadeena asaasiga ah waa inaan dadka ku caawino inay iscaawiyaan, ha ahaato dawladda, ururada aan dawliga ahayn, hay'adaha saxaafadda, ganacsiyada ama shakhsiyaadka. waa taas shaqada aan qabanno. shaqadaas waxaan u qabanaa 3 qaab. waxaan dhisnaa xirfadaha iyo nidaamyada si aan dalka uga caawino in uu si wanaagsan u shaqeeyo. waxaa arrintaana loo maraa in wasaaradaha lagu caawiyo inay diyaariyaan siyaasado iyo qawaaniin cusub, iyo sidoo kale in la hirgeliyo barnaamijyo lagu tababarayo ciidamada booliska. waxaa sidoo kale jira barnaamijyo lagu xoojinayo awoodda hal-abuurayaasha ganacsiga. barnaamijyada waa kala duwan yihiin, laakiin ujeedku waa mid. ujeedku waa inaan dhisno xirfadaha dadka si aan annaga naloogu baahan oo ay awood ugu yeeshaan inay arrimahooda qabsadaan. marka
inkastoo aan Soomaaliya wax badan joognay haddana ujeedkeennu waa in aan gaarno maalin aysan Soomaalidu u baahan doonin taageero dibadeed nooca ay doonto ha ahaatee. Tan labaad, waxaan dowladda ku caawinaa bilaabista mashaariicda horumarinta sida dhismaha iskuulada, xarumaha caafimaadka, jidadka, kaydadka biyaha iyo kaabayaasha kale ee muhiimka ah. Waxaan dowladda ku caawinaa inay agaasinto lacagaha deeqda ah iyo mashaariicda si kaalmada looga dhigo mid waxqabad leh oo ka jawaabaysa. Inta badan waxaan la shaqaynaa maamulada maxalliga ah si aan uga caawinno horumarinta nidaamyada ay ka mid yihiin canshuurta iyo diiwaangelinta ganacsiyada iyo bixinta adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada iyo xarumaha caafimaadka. Qaabka saddexaad ee aan Soomaaliya u taageerno waa in ay gaarto nidaamyada maalgelinta iyadoo adeegsanaysa khibrad caalami ah. Tusaale ahaan, qasnadda caalamiga ah ee deegaanka, sanduuqa caalamiga ah ee cimilada. Arrimahani waa kuwo aan Soomaaliya ku caawinno in ay maarayso hannaanka biyaha, tusaale ahaan iyadoo la aas-aasay nidaamka ku salaysan fariimaha taleefannada, kuwaas oo loogu talagalay in loo adeegsado helidda digniinaha hordhaca ah ee abaaraha iyo diirimaadka cimilada. Ujeeddada ugu dambaysa ee aan leenahay waa inaan caawimaad ka geysanno xaaladda guud ee Soomaaliya, gaar ahaan dadka nugul. Haddii aan si guud u hadalno, dukumentiga cusub ee aan ku howlgalayno ayaa ah mid aan ka wada shaqaynay dowladda Soomaaliya, waxaana ku taageeraynaa qorshaha horumarinta qaranka Soomaaliyeed, kaas oo hiigsanaya gaarista ujeeddooyin dhanka horumarka ah oo waara sanadka 2030. Wuxuuna u qaybsan yahay 3 arrimood oo muhiim ah: dowlad wanaagga iyo siyaasadda loo dhan yahay. Markaan halkaa joogno, waxaa muhiim ah barnaamijyo dowladda maxalliga ah. Waxaa sidoo kale muhiim ah taageeridda jidka lagu gaarayo doorasho xor oo hufan, dib u habaynta dastuurka si aan awood ugu helno waxyaabaha aasaasiga u ah jiritaanka dowladda. Qodobka labaad waa ammaanka iyo ku dhaqanka sharciga iyo helitaanka cadaaladda. Tusaale ahaan, in dhidibada loo taago hannaan xallinta ku saabsan colaadaha iyo muranada oo ka duwan kuwa caadiyan la adeegsado. Horumarinta wadahadallada bulshada dhexdeeda ah iyo sidoo kale horumarinta guud ahaan hannaanka cadaaladda. Dhinaca saddexaadna waa dhinaca maaraynta ee khayraadka qaranka iyo sidoo kale maaraynta masiibooyinka iyo dhisidda adkaysiga. Tusaale ahaan, marka aad eegto duufaantii ku dhufatay Puntland, waxay geysatay waxyeello badan, xoolo badan ayay galaafatay, laakiin nasiib wanaag dadka ay galaafatay ma badnayn. Waxaana ugu wacnaa hannaanka digniinaha hore bixiya oo si wanaagsan u shaqeeyay. The number of people who actually were killed was very much smaller, and that's because in Puntland the early warning systems actually worked. Jocelyn, marka bal waxaad sharaxaad naga siisaa sida loogu guuleystay taageeradan. Well, you know, some of this work is easy to see because it's physical things like reservoirs and markets and roads. But there is much more, and I think in some ways. Hagaag, qaar ka mid ah shaqadeenna wax muuqda oo la arki karo waxaa ka mid ah kaydka biyaha, suuqyada iyo jidadka. Laakiin shaqadu intaas waa ka badan tahay. Waxaa laga yaabaa in ay tahay shaqo ka muhiimsan laakiin aan aad u muuqan. Haddii aan dib ugu laabto barnaamijka dowladda maxalliga ah, waxaan si joogto ah ula shaqaynaynay maamulka heer degmo si aan u dhisno awoodda shaqaalaha muhiimka u ah habsami socodsiinta maamulka sida injineerada dowladda hoose, xisaabiyaasha dowladda hoose. Waxaan sidoo kale dhisnay nidaamyada kale ee shaqada muhiimka u ah sida kan loo isticmaalo ururinta canshuuraha, kan loo isticmaalo maaraynta maaliyadda iyo maalgelinta. Dhammaan howlahani waa muhiim, laakiin ma ahan kuwa u muuqda sida kuwa kale. Waxay muhiim u yihiin socodsiinta howlaha dowladda si ay awood ugu yeelato bixinta adeegyada loo igmaday iyo in sidoo kale muwaadiniintu ay weydiistaan dowladda adeegyada ay u baahan yihiin. And enable government to provide the citizens with the services that they need and they can ask for and demand
from their government. ugu dambeyn maxay yihiin caqabadaha jira sidaas u aragtaa sida ay hay'adda UNDP gacan uga geysanayso xalintooda? Somalia is a country with a huge amount of potential. It has many resources, it has a fantastic people, profoundly entrepreneurial. ogolow inaan kuu sheego in Soomaaliya ay haysato fursado kala duwan. Waxay leedahay khayraad baaxad leh, waxay leedahay dad cajiib ah kuna wanaagsan hal abuurka ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee, sida ay ka warqabaan dhageystayaashu, Soomaaliya waxay soo martay taariikh aad u dhib badan. Waxayna sidoo kale wajahaysaa caqabado fara badan oo cusub oo dhaafsiisan dhanka ammaanka, khilaafaadka siyaasadda iyo Al-Shabaab intaba. Waxay Soomaaliya wajahday caqabado saddex geesood ah sida abaaro iyo duulaanka ayaxa. Taasina waxay tusaale u tahay sida Soomaaliya ugu nugushahay isbeddelka cimilada. Haddaba haddii aan ku laabto caqabadahan, waxaad u baahan tahay saddex shay. Tan koowaad waa waxaan u baahannahay horumarinta muddada dheer. Gargaarka bini'aadanimada waa muhiim si ay dadka uga gudbaan mashaqadan joogtada ah oo ay ka mid tahay colaaddu. Sidoo kale, si looga gudbo meertada ku tiirsanaanta gargaarka si ay Soomaalidu u noqdaan kuwa isku filan. Si taas loo gaaro, waxaa muhiim ah taageero dhanka horumarka muddada dheer. Ujeeddadaas si gaara waa in sidoo kale la sii wadaa taageerada caalamiga ah ee la siiyo Soomaaliya. Ma ahan midda ammaanka oo keliya, balse waa in Soomaaliya laga taageeraa dadaalada cafinta deynta oo ah mid ay Soomaaliya ka shaqaynayso. Dabcan, waxaa sidoo kale loo baahan yahay heshiis iyo diyaarsanaan dhanka Soomaalida oo ku aadan xal u helidda dhibaatooyinka siyaasadeed ee dalku wajahayo. Waxay ila tahay waa muhiim inaan xusuusanno in horumarku uu yahay sida dhismaha oo kale. Dhismaha badanna lama arko. God ayaa dhulka laga qodaa, kadib waxaa lagu shubaa shamiito, mana dareemaysid in wax dhismo ah ay socdaan. Laakiin muddo kadib waxaa soo baxaya dhisme, taas oo si dhaqso ah loo dhammaystiray. Maadaama aas-aaska si wanaagsan dhidibada loogu aasay, marka la dhammaystiro derbiyada iyo qaybaha gudaha ee dhismaha, wax badan ma qaadanayso in la soo gabagabeeyo. Waxaana hadda ku jirnaa marxaladihii ugu horreeyey ee dib u dhiska Soomaaliya oo aan kaabayaasha dhismaha salka ugu dhigayno. Waxaana rajo weyn ka qabnaa in aan mar aan fogeyn arki doonno qaab dhismeedka Soomaaliya sida dhismaha aan tilmaamayn, kaas oo si dhaqso ah u dhammaystirma. Waana middaas tan hay'adda UNDP ay u taagan tahay inay taageerto. I hope that is the case for Somalia, and certainly UNDP stands ready to support it. aad buu u mahadsan yahay. kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Jocelyn Mason oo ah madaxa xafiiska UNDP ee Soomaaliya. runtii Jocelyn Mason aad ayuu noogu faahfaahiyey waxqabadka hay'adda UNDP annaga iyo dhageystayaasheenaba. hase yeeshee balan markan eegno waraysi aan la yeelanay duqa magaalada Garowe Axmed Siciid oo aan ugu horeyn weydiinay howlaha hay'adda UNDP iyo maamulka Garowe ay ka wada qabteen horumarinta magaalada. UNDP waa hay'ad ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay ee ku bahoobay mashruuca JPLG-ga la yiraahdo. mashruucaas oo ah mashaariicda Soomaaliya laga fuliyay kan ugu waxtarka badan gaar ahaan Garowe marka aan joogno. mashruucan aad uga faa'iideysanay dhinaca capacity-ga ama mugga maxaa la yiraahdaa shaqada iyo aqoonta shaqada dadku u leeyahay, dhinaca qalabaynta, dhinaca maxaa la yiraahdaa wadooyinka iyo infrastructure-ka magaalada gudaheeda oo taasoo aad u kordhisay ganacsiga iyo isu socodka magaaladana ka dhigtay meel maaragtay wanaagsan oo soo jiidan karta dad badan inay degaan maadaama ay horumar samaynayso. dhinaca wadooyinka nalalka ku yaala UNDP gaar ahaan waxay iyadu awoodda saartay dhinaca diyaarinta siyaasadaha iyo xeerarka iyo qalabaynta xafiisyada maamulka iyo xisaabaadka iyo inay kor u qaado aqoonta iyo tayada shaqaalaha ka shaqaynaya. marka waa maxay dhinacyada nidaamka ee ay UNDP idinka taageertay si adeeg wanaagsan loo gaarsiiyo dadka? dhaqaalaha ama xisaabaadka, siyaasadaha ku saabsan iyo tababarada ku saabsan iyo qalabaynta xafiisyadaas ayay qayb weyn ka qaateen, iyo siyaasadaha kale baarista ama auditka waxa la yiraahdo oo internal auditka baarista gudaha
qaybahaasay iyaguna siyaasadahooda iyo systemkooda qayb ka qaateen. sidee bay markaa hawsha aad wada qabateen UNDP u hagaajinaysaa nolosha dadka ku nool magaalada Garowe? nolosha dadka mashaariicdan JPLG-gu fulinaysa wax badan bay noloshooda ka bedeshay. waxay kor u qaaday ganacsigii, waxay kor u qaaday isu socodkii, waxay kor u qaaday bilicdii iyo maxaa la yiraahdaa muuqaalkii magaalada. waxay soo jeedatay dad badan oo maalgashadayaal ah dhul kale ka yimi. wax badan bayna hadda ka bedeshay. waxaa laga yaabaa markii la bilaabayay mashruucan JPLG-ga ee UNDP qaybta ka tahay degmada Garowe ganacsiga ku yaala inuusan ka badnayn 500 oo irdood, laakiin maanta oo ay ka soo wareegtay 10 sano wax aan ka badnayn waxaa ku yaala 3,000 oo meheradood ayaa magaalada ku yaala, waana sii kobcaya. aad ayuu u mahadsan yahay. kaasina dhageystayaal waxa uu ahaa duqa magaalada Garowe Axmed Siciid oo nooga waramayay taageerada ee UNDP siiso magaalada Garowe iyo dadkeedaba. si aad uga qayb gasho barnaamijkan soo wac idaacadda aad barnaamijkan hadda ka dhagaysanayso adigoo aqoon ku salaynayana ka jawaab su-aasha ah sidee u aragtaa taageerada joogtada ah ee ay UNDP u fidiso dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. haddii aad barnaamijkan kala socoto baraha bulshada ee Unsom fadlan noo reeb aragtidaada. intaas ayaan dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa qaybtii 5aad ee barnaamijka Taakulo oo aan toddobaadkan uga hadalnay howlaha waxqabadka hay'adda qaramada midoobay ee UNDP. intaan dib ugu kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.